aragtida dadku waxay u badan tahay dad adduunku mashquuliyey oo adduunuun xaalkoodu noqday aakhirana inta ugu yar siiya in qofku subaxii markuu soo tooso ilaa iyo markaad seexanayso acmaal aad sileedahay aakhiraha ku anfacdo haddii 5 salaadood laga tago imise kale aad u malaynaysaa inaad samayso acmaashaada dunawigiisa intay tira leegtay asalkuna wuxuu ahaa qofka muslimka inuu isu dheelitirnaado dadka waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ay dee waan shaqeeyaa wakhti kale heli maayo waxaa la shaqeeyaa soo 8 saacadood maaha 16 saacadood kale maxaad qabataa ilaa shaqadu haddaad shaqo tagto oo maanta oo dhan soo shaqayso 8 saacadood baa la shaqeeyaa aragtida islaamiga iyo diintu say sheegtay adduunka iyo aakhira iskama hor yimaadaan qofka muslimka agtiisa acmaasha adduunya uu qabtana camal aakhiruu ka dhigi karaa acmaasha aakhire uu qabtaana faa'iido dunawiya yeelan karta ilaahayna qur-aanka wuxuu ina farayaa labadaba inaynu la nimaadno yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascuu ilaa dikri illaahi wadaruu lbayc ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلهي آيات القرآن كوحينا قلت المامية كو إيمانك لغاها لي وهدي صلاة جمع ليدن كويارو شوشية حكسية ودق دقا إلهي حسكيسي ذكركيس عبادة ودق دقا waxa kale shaqaa haysaana joojiya saasa idin khayr badan laakiin salaada marka dhamaysataan baa ilaahay yiri fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah dhulka u foofa oo waxa raadisaan ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligi wadhkuru allaha kathiran ilaahina in badan xusaydinkoo ku maqan wixii dantiinaha mafhuumka cibaadada ee diintu ay inoo sheegaysaa wuxuu yahay noloshoo dhan in taaca loo bedelo noloshaad qabanayso dhan inaad taaca u beddesho saa daraaddeed baa ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah wabidaalika umirt yani nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaa dheh ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati salaadayda gowracayga cibaadadayda bal maxyaaya wa mamaati noloshayda iyo geerideeduba lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala xagga allah noola kacaya marka waxaa la yidhi noloshaad oo dhan iyo geeridaaduba jidkaa ilaahay ha wada haya reer banu israa'iil ninkii xoolaa badnaayee ay waaninayeen ee ilaahay waanidaa inoo soo guuriyey oo ay tilmaamayso waanidaasi inay mid sax ahayd waxay ku yidhaahdeen wabtagi fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayka walaa tabgi alfasaada fi lard ina allaha laa yuxibu almufsidiin waxay ku yidhaahdeen wixii alle uu ku siiyey ee adduunaha aakhiro ku raadcayso adduunyadaadana ha ilaabin adduunyadaada ha ilaabin waxay u jeedaan mufasiriinta badh waxay yidhaahdaan inaad ku tamatucdo wixii xalaashahaya kuu bannaanaa iyana laguma diidaye laa tansa nasiibaka min addunya ama maaha inaad xoogsi tagto oo dhaqaalo samayso laguu diidi maayo إلهي قرآن وقل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا كما ممنوعي قرحضة إلهي وأدومه سوصو صارية وناقة يا أدي ديكوا مؤمنين تا في الحياة الدنيا نرش الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
aayaddu waxay tilmaamaysaa qofka mu'minka ah inuu wax fiican cuno ama wax fiican xidho ama meel wanaagsan seexdo dee diintu ma diidaysaa ilaahay leh ilaahay wuxuu leeyahay ka mamnuucay laakiin aakhirana iyagaabay gaar u tahay baa ilaahay leeyahy oo gaalku dee naar buu galayaa lama wadaago meesha waxaa ku jira markaa qofka muslimka ahi waa inuu adduunkiisa iyo aakhiradiisa isu dheeli tiraa tawaasunku suu u imanaya inta badan dadku hadday ifraad sameeyaan tafriidkuna oo laazim buu ku yahay yacni hadday dhan u bataan dhanka kaley dayaceen laakiin waxaa lagaa rabay dhex inaad ahaato oo ilaahay wuxuu leeyahy wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhada'a cala annaas waxaanu idinka yeelnay baa ilaahay leeyahy ummad wasata alwasatu fi luga iyo alictidaal ummad dhex ah oo miisaan saxa sidata oo ummadaha ku markhaati kacda lababa markaa waa laynaga rabaa kow ilaahay cibaadadiisa waa laynaga rabaa wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun cibaado waa laynaga rabaa waxaa kaloo laynaga rabaa ilaahay manhajkiisa inaynu dunidan ku maamullo oo khaliifatullaahi fi lardi baatay waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo lagaa rabaa dhulka inaad camirto huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha ilaahay dhulkuu idinka abuuray waxaana laydinka dalbay inaa camirtaan oo hagaajisaan waxaa kaloo laynoo tilmaamay meeshan inay mowduculimtixaan tahay marka wax walba meeshii loogu talagalay inaynu dhigno adduun iyo aakhiraba baa laynaga rabaa alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala acmaasha aynu samaynayno ee layna weydiiyey inaynu la nimaadno ayaa hadhowna laynugu itixaamaya oo aakhira iyadaa laynugu abaalmarinaya walilaahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard liyajziya aladiina asaa'uu bima camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna aakhirana taas baa laynugu abaalmarinaya sidaa awgeed qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu cibaadaysto waxaa laga rabaa inuu adduunkan kan camiro waa faham qaldan fahamka odhanaya adduunka intaad ka tagto meel isku xidho unoo wardiyo salaad un tuko rahbaaniyadaasi diinta kumay soo aroorin walidaalik saxaabi saxaabada ka mid ah salmaan alfarisi saxaabadii la walaaleeyey waxaa ka mid ahaa asxaabta noqday walaalaha noqday salmaan iyo abidardaa salmaan alfarisi baa wuxuu yimi gurigii abidardaa dabeetana wuxuu arkay xaaskii abidardaayo aanay ka muuqanin gabadh ninkeedii guriga jooga inay tahy yacni dumarku marka odaygoodu joogo waa isqurxiyaan markase ama ay umusho ama laga maqanyay ama cidila joogin waa mutabadila wuxuu arkay gabadhii oo iska mutabadil ah dabeetana wuxuu ku yidhi maxaa dhacay maa sha'nuk arrinkaagu muxuu yahay waxay tidhi walaalkaa abudardaa laysa lahu xaaja fi dunya saxaabi kale abudardaa bay tidhi walaalkaa dunidaba dani kama hayso dumar iyo raaxa iyo adduun iyo waxaa iskaga teg bay tidhi adduunkaba dani kama hayso dabeetana raashin bay u keentay labadoodii abudardaa baa yidhi waan soomanay isagu maalintiina wuu soomaa habeenkiina wuu taagan yahay raashinkii markii la keenay ayuu abudardaa yidhi waan soomanahay salmaan baa wuxuu yidhi cun raashinka waad ila cunaysaa cun raashinkii buu la cunay soontii wuu ka jebiyey waa la seexday in yarba intaan la jiifin buu soo booday dacalkuu qabto wuxuu yidhi nam war seexo cabaar markuu joogo haddana soo kacay wuu qabtoo nam buu yidhi seexo markii waagu soo dhow yahay
وصلاة السبحاني ولي قارن أيولي كع هالضبا هذا كع دبتنا هو كعان قبل صلاة الصبح ووحي تكن كريان للتكدي سلمان الفارسي مركا يسوق أبي الدرداء وارني وحكيري إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه وريا أبو الدرداء يودغيسو نفتاض حق بيك وغلاده ربي كان حق بك وغلي مرتدى كوتي من حق بيك وغلاده reerka aguna xaq bay kugu leeyihiin cid walba xaqeeda sii xuquuqda badhna ha ka tegin badhna ha wadine cid walba xaqeeda sii buu yidhi waagii markuu bariyey ayay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam dabeetana qisadii baa nebiga loo sheegay nebigu wuxuu ku yidhi markaa sadaqa salmaanu سلمان رمبو شيغي بو نبي عليه الصلاة والسلام فقه سلمان باكاس أحسن أبي الدرداء بالله تلمامية دبتنا نبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان وحلم ذا عمر بن عاص صحابي اللي ورنشري يا إنا نودلي عبد الله بن عمر بن عاص ونين عبادة بدنا وننكي كلها نبي قرآنك وقت بدن ما دمينا يا مالتي وسو على كل حال نادو عبادة بدن بوها دبتنا قبل بو غوري أبيه با قبل غوري وصاب بغض مركو صاب بغضي بو حكيري كيف ترين بعلك إن أنت وصدق وهابو حليها نابل كور نكاكي وحيتري نعم الرجل وأنن بوفي عي بيتري لكن ما حيكون صفيسي لا ينام الليل ولا يفطر النهار هبين نما السيحدة بيتري ما لنا ما أفره إنه ووفي عي بيكتري وفهم يوحي وشهد مركها دبتنا عمر بن عاصين كيسيبو عنانتي أو ماغي warkii baa nebiga gaadhay calayhi salaatu wasalaam nebigu cabdilaahi buu u yeedhay war sooleyma sheegin buu ku yidhi inaad maalintiina soomantay habeenkiina kacdo haa buu yidhi ilaahi rasuulkiisiiyo nebigu wuxuu ku yidhi falaa tafcal sidaa ha yeelin oo daa muxuu yeelaya sum waftir buu nebigu yidhi soonna afurna waqum wanam هبينكي سيحنا كعنا وايو فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا نبي عليه الصلاة والسلام عقويري شركاغو حقوق بكولي إيش هذا حق بيكولي هو أنت تقبطانا حق بيكولي مرتدك صاب بغطانا حق بيكولي وليبا وحو نبيغو الرعي مركا لا سام من سام الدهر وحبا ما سومين نكا سنة كوردان اسكا صوماني ومحو لي سدح مال موت بالكستا الصوم بو نبيغو كويري ساس با سوم الدهر كواهي بالكستا سدح مال موت ده هدا طبعا اشارة كورو فتوى محي بالبا ورغتا بالكستا سدح كالصوم بو كويري قرآن كان ثلاثة قرآن كان واحد بدن بو شيكتي سنة انت آخر بالليل كب بدن بان أود أبو القرآن نبقى عليه الصلاة والسلام وحوت الماما مركي دنبه هدانت سيدا يلينين هدبتي نبي داود سميهم بيري وتنبي داود وامحي ما لنا بسومي شري ما لنا بوافر شري قرآن كان بيري تدبها بين كي يرحكوا آخرين saxaabiga kan yar ee dhallinyaradii u xamaasadaysanaa diintu markaa waxay sheegaysaa kuwa xamaasadaysanna in la yidhahdo miyiriya kuwa dayac uu qaadayna in la yidhaahdo war meesha ka soo durka walidaalika saxaabadu rag xoogsaday haayeen cidina biil ma siin jirin
cumar bin alkhataab ayaa wuxuu ka warramay xaadithatul ifki markay dhacaysay in isaga iyo nin ansaariyi midba maalin xoolaha uu raaci jiray xoolahay lahaayeen ayay ku kaltamaan midba maalin buu nebiga la fadhiyaa ka kalena xooluhu raacaa hadhow habeenkii markay isu yimaadaan buu wixii uu maanta nebiga ka soo maqlay u sheegaa maalintay xaaditadani dhacday buu yidhi anigu xoolahan jiri ninkanina nebigu la joogay deetana wuxuu uga warramay waxa dhacay ma og tahay buu leeyahy idan waxay ahay nimankaa xoolahoodana raacanaya diintana baranaya nebiga calayhi salaatu wasalaam u kaltamaya abubakar nin taajiroo xoogsadu ahaa haddana wuxuu soo helay ilaahay dartii u bixiya cuثmaan ibnu cafaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo raggaasoo dhammi tijaarad bay ka shaqayn jireen haddana casharatulmubashiriin bay ka mid ahaayeen ummaddu hadday dhaqaale samayn weydo horumar samayn mayso haddii la yidhaha qof waliba intuu cuno una soo saaro faa'id maaliya haddaanu jirin laa sanaaca walaa xadaara walaa taqadum iman maayo waa in faa'id maaliya jira xoolo dheeraadi waa inay jiraan oo loo infasgareeyo horumarka ka shaqaynaya idan islaamku ma diidana qofka mu'minkii inuu xoolo sameeyo laakiin waxaa la diidan yahay in adduunya ku qaadato dhanka kalena waxaa la diidan yahay inaad tidhaahda cibaadaan u go'ay hadhowna dadka barido labada midna lama ogola oo kuwan adduunka u go'ayna nebigu wuxuu yidhi tacisa cabdu diinaar tacisa cabdu dirham ha hooga ama waxa hoogay ka diinaarku wakhtigaa waa dahab ka dahabka addoonka u ah iyo ka fidada addoonka u ah iyo ka khatiifadda addoonka u ah baa la yidhi markaasuu weliba habaarayo nebigu wuxuu yidhi tacisa wantakas waida shika falantaqash waa hoogay oo madaxu u dhacay oo hadday qodaximadana kama baxdo waa habaar bay culammadu yidhaahdaan idan ayuha alaxiba kuwa adduunka ku mashquulayna waxaa loo tilmaamaa ilaahay taacadiisa inay laazimaan kuwa yidhi noloshaannu ka baxnayo waanu wardayaynaa una waxa loo tilmaamay inay xoogsadaanna cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhataab oo nin dhallinyaraa buu nebigu wuxuu ku yidhi dhallinyaradu had iyo goor dee inay xoogsadaan iyo baabkan waa jecel yihin laakiin nebigu markuu la talinaya waa isaga diin buu kala talinayay nicma arajulu cabdallah low kaana yusallii min alleyl buu nebigu yidhi nin cabdillaahi waa nin buu u fiican yahay hadduu habeenkii tukan lahaa buu nebigu leeyahy maxaa loo tilmaamaya cabdillaahi markaa salaatuleylkana inuu wax ka tukado waanu jiifinu isagoo nebigu meel fadhiyaa nin laga warramay deetana waxaa la yidhi hebel wuu seexdo siduu u hurday ilaa iyo subaxii buu seexday markaasuu nebigu oo maa qaama ila salaad bay idhahdeen markaasuu nebigu yidhi daaka rajulun baala ashaytaanu fii udunay kaasi waa mid shaydaan dhagaa kaga kaajay maxaa la rabaa markaa qofka mu'minkii inuu cibaadaystana xoogsadana sidaa awgeed ayaa saxaabadii waxay sheegeen saxaabada kuwii foqorada ahabaa nebiga u yimi xadiiskaa taqaaneen waxay idhaahdeen dahaba ahlu duhuuri bilujuur kuwii maalka haystay ayaa ajarkiiba la wada tegay bay leeyihin waa naga ajar badan yihin oo waayo waxay leeyihin dee saan u soonnana way u soomaan saan u tukanana way u tukadaan xoolo dheeraad oo ay sadaqadaystaanna way haystaan markaasuu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo idinkuba waxa sadaqadaysataan miyaydaan haysanin haddaad xoolo weydo tasbiixda iyo takbiirta iyo tahliisha iyo kuwan badi iyagaa sadaqo kuwa ah wanaagga dadka far kuwa dhibto haysata kaalmee ilaa yow nebigu ka soo gaadhsiiyey wa fii budci axadikum sadaqa ninkoo haweenayda uu qabo xaqeeda guda na sadaqay ku tahay buu nebigu yidhi mase yidhahda ilaahay rasuulkiisiiyow ma intaan anagu shahwadayada gudanno ayaannu haddana ajarka helaynaa oo hadduu meel xaaraana dhiga buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaanu wisir ku ahaanin idan in adduunka laga shaqeeyo iyo in la cibaadaysto isma diidayso diinta islaamiga
bal ee danta caamka in laga shaqeeyo nabigu wuxuu yidhi xadiidka muslim ummaddayda lay soo bandhigay acmaasheeda keedii xumaa iyo keedii wanaagsanaaba waxyaabaha wanaagsana ay samayso waxaan ku arkay buu nebigu yidhi oo ka mid ahaa xumaha oo waddada laga duwo waddadoo qashinka iyo wixii adaa ku ahaa laga qaado masaawi'deedana waxyaabaha xunxune ay sameeyeen lay soo bandhigayna waxaa ka mida buu nebigu yidhi candhuufta masaajidka lagu tufay aan la aasin yani masaajidkii nebigu wuxuu ahaa maxay ciid markaa intaad candhuuf iskaga tufato inaad ka tagto ayuu nebigu u diidanaa labada shay ee uu sheegay ee midna wanaagga uu ku tilmaamay midna uu xumaha ku tilmaamay ee nebiga loo soo bandhiga waa maxay waa labaduba dan guud oo nadaafada waddooyinka ummaddu inay wanaagsanaadaan masaajidooda iyo meelahay ku cibaadaysanayaanna inay maxay inay wanaagsanaadaan ayuha alaxiba markaan warka soo koobo waxaan tilmaamayna nebigu wuxuu sheegay haddii midkiin uu abqaalku waa geedkan dhulka lagu aasayo waxa la beeraya qaarna midhaha la beeraa qaarna geed sidiisiyabaa la abqaalaa geed timireed la abqaalayo hadduu midkiin gacanta ku haya buu yidhi qiyaamuhu xaggaa ka soo dhaco hadduu ka gaadhsiin karo ha aasa buu nebigu yidhi ha beero haddaad aragto qiyaamiyo xaggaa ka soo dhacaya aduu wax ma beeri lahayd innagu sidaynuu fakeri lahayn waxay noqon lahayd mar haddaad qiyaamiyo aragtay bal waxoogaa tasbiixa ama hal sujuuda ama wax kale uun cibaada ka gaadhsiiyey laakiin nebigu wuxuu u tilmaamay haddaad geed timireed haysay beer buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagaa cibaada ah baa la tilmaamaya markaa sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan arkay nin jannada isku rogrogaya oo waayo waddaduu ka gooyey laan dadka dhibaysay dadka dhib ku hayay ayuu waddada ka jaray ayuu janno ku galay bale xadiidkii uu nebigu sheegay qisuu ka sheekeeyey nebigu nin meel maraya ayaa wuxuu maqlay daruurta korkeeda oo cod ka baxayo codku markuu dhegaystay waxaa la leeyahay beerta hebel waraabi ayuu maqlayaa dabeetana wuu yaaba isagoo codkii ka yaaban ayay daruurtii socoto meel halkanay ku da'day dabeetana biyihii oo dhammi dhudhub bay soo raaceen meel iliilada ayay biyihii soo mareen wuxuu u yimi nin iliishii taaganoo beertiisa ku duduwaya wuxuu ku yidhi yaa cabdallaahi masmuk waar ilaahay addoonkiisiiyo magacaa markaasuu yidhi hebel hebel baa la yidhaahdaa magicuu ninkani maqlay buu sheegtay maxaad ii weydiisay buu yidhio waxaan maqlay buu yidhi saxaabta daruurtaasi oo la leeyahay beerta hebel waraabe markaan soo dabagalayna roobkii adigunbuu beertaadii helay iliishan yare adigaad waddo un waa biyaha ka soo dhacay meel kaloo roob ku da'ayna ma jirto eniyo waxaad qabatay ii sheeg buu yidhi maxaad samaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey markaa ninkani wuxuu qabto ninkani wuxuu yidhi wax kale ma sameeyo beertan baan ka shaqeeyaayoo falaa markay soo baxdo 3 qaybood baan ka dhigaa qayb masaakiintaan siiyaa qaybna aniga iyo carruurtaydaa cunna qaybna beertaan dib ugu celiyaa buu leeyo shaqadeedii dambe iyo beeristeedii dambaan ka dhigaa markaa ninkani wuu shaqaynayaa shaqadii uu shaqeeyeyna inna wuu sadaqadaystay inna xuquuqdii reerka iyo intan buu ku dabaray inna beertuu dib ugu celiyey shaqadaasi adduunye uu qabanayey ayaa ilaahay ugu abaalguday in daruurta la yidhahda kaa beertiisun waraabi beerta hebel waraabi in la yidhaahdo waana kii nebigu lah calayhi salaatu wasalaam maa akala axadun طacaaman qatu khayran min an ya'kula min camali yaddi qof wax ma cuno ka khayr badan wuxuu gacantiisa kula soo baxay wuxuu shaqaystay nebiyullaahi daawuudna wuxuu la soo baxaa buu cuni jiray buu leeyahy nebiyullaahi daawuud boqor buu ahaa dad u taliya oo dowladdii ugu ballaadhnayd ee yuhuud yeelato isaga iyo inankiisibaa
maamulaya rasuulna ahaa nebina ahaa wamaca daalik waxa uu cunayo wuu xoogsan jiray farsamada qalabkan lagu dagaalameen la isku xidho biraha kan ayuu yaqaanay marka waana xoogsanayey rasuulna waa ahaa dowladna waa maamulayay waxay tilmaamaysaa markaa dadka kane sida ay aakhiriya adduunkoodaba uga shaqaynayeen ilaahay markuu saxaabada la yidhi cibaadaysta yaa ayuha almuzammilu qum billayla ilaa qaliila nisfahu wanqus minhu markii la tababarayey cibaado badan baa la faray habeenkii inta u badan inay kacaan ama in yar ka dhimaan kadib إلهي وحده علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وعدتي ما إلهي لي إن إذن كمدين ضد سفر كتشرو حول الرادسة يدد إلهي درتي ودقال مياه مركا فقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحي قرآن كيدين فضوضاضة أخرية صلاة وأوقع الزكاة ربحية عذر ذلك دتك اللسية إلهي لي وحن دين كخفيفية دتك الدرادة وامحي ولا قرني وي جهتميا إلهي درتي كو جهتميا تخفيف وباهين بالين لكن كوا يا والله اسكت دري يكوي حوك سني وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كوا حوك سنية يكوي جهتميا إلهي اسكت سف مري والله بدو بين عبادك وشرا الله المامية أيها الأحبة أعماش الدنوية عبادة الله قد يكره dadku haddii la yidhahdo dhammaantiin masaajidka ku jira yaa agoonta quudinaya yaa masaakiinta quudinaya yaa waddanka difaacaya yaa waxaan samaynaya haddaynu dhammaanteen idhaahna habeenkiina ha la taagnaada maalintiina ha la soomo maxaa ka jira markaa waxaa ka jira qofka muslimka adduunkiisa iyo aakhiradiisaba inuu kulmiyo saxaabadoo meel fadhida ayaa waxaa ku soo baxay nin dhallinyaro xooggan isu geystay ninkii dhallinyaraayo xoogganaaba intay saa u eegeen ayaa waxay dhahay low kaana haada fii sabiili illah waxaasoo xoog iyo tamara fiicnaan lahaydee hadduu ku dagaalgalayo jihaad hadduu ku gelayo fiicnaan lahaydee bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii buu ka hadlay markaasna wuxuu yidhi hadduu u soo baxay caruur uu dhalay inuu u xoojiyo fa huwa fii sabiili illaahi buu yidhi sabiilullaahi ganaad rabtaan ayuu ku jiraa hadduu u soo baxay buu yidhi waalid gaboobay odaya islaan gaboobay oo labadiisii dhalaya oo iyaga wuu soo baxay inuu quudiyana fa huwa fii sabiili illaah hadduu u soo baxay buu nebigu yidhi isagu lafihiisa inuu quudiyo dadka aanu baryin fa huwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi laakiin hadduu u soo baxay buu nebigu yidhi six bogoskiisa inuu dadka tuso yacni xadiidku macnahaasoo kaleu tilmaamaya riyaa'an wa mufaakhara istustus iyo faan hadduu u soo baxay fa huwa fii sabiili shaytaan buu nebigu yidhi markaa yacni maxaa la tilmaamay adduunyadoo laga shaqaynaya in ajar lagu heli karo way noqonaysa wax anfaca qofka aakhiradiisii sida awgeed haddaan warka idinkooba waxa weeyaan acmaasha dunawiga shareecada markaynu ka eegno marduud ukhrawiya yeelan kartaa iyadoo camal dunyo ah ayaa aakhiro laga abaalmarin karaa cagsiguna wuu jiraa acmaasha aakhirana waxay leedahay marduud dunawiya iyaduna idan labaduba adduunkana waxbay ka wada taraan labaduba aakhirana waxbay ka wada taraan sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii la weydiin jiray waxaa ka mida inay weydiiyeen dadka yaa ilaahay ugu jecel yihi ama acmaasha yaa ilaahay ugu jecel yihi nebigu wuxuu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu u jecel yahay ka dadka ugu nafciga badan leh waxtarka ah acmaalle ilaahay wuxuu ugu jecel yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam farxad guri muslima la geliyo oo kurba haysatay laga qaado dayn lagu lahaa laga faydo gaajo haysay laga bixiyo intaa markuu sheeguu nebigu wuxuu yidhi haddana qof muslima inaan raaco oo dantiisa aan u soo gudo ayaa agtayda lagaga kalgacal badan yahay lagaga jacayl badan yahay inaan masaajidkayga kan bil ku ictikaafo
labadu nebigu si dhinac dhaga u fiirso masjid nabawi salaada lagu tukadaa waa imisa waa 1,000 ka maka waa 100,000 ka madiinana waa 1,000 bayt almaqdisna waa 500 marka masjid nabawi salaad kasta waa 1,000 shan salaadood ku tukato waa 5,000 bil haddaad ku tukanaysay 150 salaadood bay noqonaysaa Soomaa waa 150,000 oo ajara kow اعتكافنا كدر وما شاء الله فرديه نبي محمد با وحو لي عليه الصلاة والسلام إن أنقف مسلم الراعو دنتي سو قبطه وحاجدي سو سوقده أيان كتش على هيبولي مساجد كان النبي عليه الصلاة والسلام إن بلكو اعتكاف صناده تام معناه دم حيث الماميسة وحانو النبي عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له قفك ولالكي الراعة إدنتي سو الراعة إلا ودنتي سو سوقده ثبت الله قدميه يوم يزول الأقدام إلهي قمديه سو سوقاه مالت قيامه هدتك السنبري رحنايو كان والله سوقاه كوحين لنا أعمال دنوية بيه أنا قف مسلم أشقد الله قبطي يوحو بانا إن دو سميس إن دعاوي قف مسلم لكن آخرة مردود كاسيل هذا أعماش آخرنا هدي سيدي أي تهي الله قبطو فإذا الدنيا يدنا لهذا وقرأ وحوت المامية بن آدم كوه هلوع وحلا هذا قفك مركا دبتو قبصتنا على عالك بدن لي وحيقول دعي موكتي كم بار دعي كم على البدن markuu khayrka helana mancinta badan aan la aamusa markuu nimcada helana wuu qarsanaya marka dhibtu soo gaadhana waa qaylinaya dadku gaadhsiinaya sifadaas yaa leh insaanka baa la yidhi goormay ka maydhantaa waxaasi ila almusalliin aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun baa ilaah yidhi kuwa tukada mooyaane salaadooda daa'imaya كواسي صفة ماله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مالة المامي إذن هي دو عبادة أي مردود دنوية لهذه صوم كبالة ينوت المامي وهل يدي جنة بيته وامحي أخلاقيات كاقية دقا كاقية دسيسة حج كبالة المامي قفك حجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الباب لا بد ولا المامي إذن آخرنا منفع بوليه أدونكنا منفع بوليه وقفك مسلم كالله توبريا إلهي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركا دبتو قبصتي قالت وكبو غضية مشاكل كبدن لو قيستي إلهي وحده ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وأقنهي وحي كوهد ليان لابتهد أي عديد دريمس ها عديد قاو دواه فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عديد هداد در انتبه ليدي التصبيح ده بضي سبحان الله وبحمده ترى بضي سجود ربط صوت إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة هديدي بالنبي قبصته وأرن ورور قليو صلاة حق يدو دق يشري الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حق الدنبال لغا شيغيا أجرك اللي هلي دونا لكن محل سوه الرئيسي وردقاق يذكر هذه الله حصته فإذا دون نكولة يو أين تحصلش ورور كيو والبهار كيو أحزان تيو حصر من كاهريا صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بضيا أو ربع بان كدغا دعاء ديدبا هذا تربتك بتسوي نص بان كده هدات ربطك بس هدات دعاء بعدم كوسو كوبي ويد صلي قاسم كو كدغ دونا نبي وحكو يدي اذا يكفى همك ورور كاغا لغاغا فلان دونا ويكفر لك ذنبك ذنبكاغنا والله دافي دونا marka faa'iida adduuniya mid aakhiraba waad ku helaysaa baa la leeyahay haddaad salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam tira badiso adduunkana humuumtaadaad tegaysa aakhirana ajar baad helaysaa waxaan ku soo koobay marka waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan maxaa ku xiga wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib adduunka dhibtii kastee kugu dhacda waxa lagu samaynayaa baa la yidhi makhraj aad ka baxdo arsaaqna waad ku helaysaa ولذلك بقى علماء يدهدان مفتاح الرزق
والسعي مع الاستغفار بين هذا. سيدا أوجد الأعمال الأخروية لها مردود دنوي، والأعمال الدنوية لها مردود أخروي. هدي إلهي درتي الله سمعيه ساس وحين لنا مركا قفك مؤمن كأدون كيسي آخر ديسو ويسوافق سيه وقتي صلاة قاعدانو ملاينيا درسي waxaan ku soo koobaya marka wax weeyaan diinteena waxayna faraysaa inaynu ilaahay keligii caabudno cibaadada badsanno adduunka xoogsanno laakiin labadaas inaanay iskhilaafin intaad ilaahay cibaadadiisa ka tagto inaad adduun u go'in intaad tiraahdaa cibaadaan u go'aya adduunka inaad dadka baryin marka waxaa la tilmaamay noloshu inay mutawaasin noqoto بين الدنيا والآخرة. إلهي سبحانه وتعالى حق هينا وافجيو دنبقنا نهدافو آخرنا كوي جنة النبي محمد كل ما عليه الصلاة والسلام إلهي نغيالو dhibaatooyin kaydin hayste kollay dadku cabanaya cabashooyinkeenana ilaahay baynu u sheeganaa ilaahay faraj hayna siiyo muslimiinta ducafada ee Gaza lagu hortaagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala yahuudiya inta la socota baa ka dhiciyo ilaahay ha u gargaaro xaggiisa nasri alla subxaanahu wa tacaala ka siiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.